Welcome to Mogadishu Cooking, the kitchen for Somali delicious food. Cuntada macaan Soomaalida. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waan idin wada salaamayn dhammaantiin akhyaaray meel kasta adduunka kaga nooshihiin. Gacmo furan kusoo dhawaada. Waxaan aad aan u salaamayaa waxa weeyaan dadka subscribe-ka cusub ee maxallada igu soo biiray. Waxaan idin leeyahay soo dhawaada, gacmo furan kusoo dhawaada. Please inta kale ee aragtana waxaan ka baryayaa inay subscribe saaraan. Maanta waxaan inoo sidaa waxa weeyaan hilibkaas ayaan rabaa inaan inoo kariyo insha Allah. Bariis ayaan ku darayaa laakiin muhiimadeedu bariiska ma aha, waa hilibka insha Allah sidaan u sameynayo iyo sida uu noqdo aan isla aragno insha Allah hadii la yiraahdo. Hilibkaas waxaan u soo jarjaray si slice oo kala ah ama maxaa la yiraahdaa wareeg waana bawdo. Marka halkaasna waxa ii yaala digsi waxaan ku soo riday waa hilib, halka kale waxa yaala waa baradho. Halkan waxaan soo qaatay caag, waxa kale aan tusayana waxa weeyaan waa yogurtka ayaan waxaan ku shubayaa caag insha Allah. Waxyaabihii aan ku dari lahaa hilibka ayaan ku dardarayaa. Imka yogurtka waxaan ku dhex daray waa huruud, waxaan ku daray barbarooniga ama barbarooniga cas oo la shiiday. Waxaan ku xijinayaa waxa weeyaan waa xawaash weeyaan aan anigu isku dardaray oo aan shiiday oo wax kasta leh oo maxaa la yiraahdaa hilibkana ku wanaagsan. Maxaa la yiraahdaa xawaashkan 2 malqacdood ayaan ka dhigay. Waxaan kale aan ku soo darayana waa basbaaskaas aad ayuu kulul yahay, waa basbaas cas aad u kulul. Intaas ayaan ku daray. Waxaan kale nimka tusayana waxa weeyaan waa kamsaro, waa kamsarada qalalan iyadoo qalalan weeyaan. ومحل كل هادو وان توميا توني كمسرة كلام كنت رأيه وحا هذا إدنسوس يعني وأورجانو أورجانو ده نوان كنت رأيه كل وحنا ندم وحلو سمين عرف قف كستنا وحو هايستا أيو قدر سنكرة حواشي دي هاد بجرجاجية لا أيات قدر سنسا وحن كلنا وحويا واسعتر وان كنت رأيه مركا إن شاء الله وحن سمينا يا waan isku walaaqayaa. Markaan isku walaaqanay hadii la yiraahdo waxaan sameynayaa oo kale aan ku soo darayaa imika waa milix milaayo weeyaan. waxaan kale hadda aan ku darayaa waa liin dhanaan qalalan oo la soo shiiday sida milixdii oo kale ah. waxaan kale oo hadda aan ku daray waa khal oo white vinegar. waxaan hadda ku darayana waxa weeyaan waa bahashi filfil madow waan sakriyato wali kuma aan darin, waan ku darayaa insha Allah. markaan isku dhex kaliyan isku dhex walaaqo waxaan ku daray waa saliid kale kuma darayo, saliidaas uma ku daraya. intaas saliid u noqonaysaa imka dhex marinayo. marka aan isku walaaqo maxaa la yiraahdaa waa filfish imkaan ku daray. marka aan walaaqo oo si fiican isu walaaqo hilibkan dhex gelinayaa. digsigaasna waa digsiga aan ku sameyn lahaa. marka hilibka markaan si fiican aan u wada mariyo xawaashka aan soo samaystay waxaan ku ridayaa digsiga hore. marka dabka kama saarayo, adiga waxaan u deynayaa cabaar maxaa la ilaa 30 minutes ayuu oolayaa insha Allah. kabacdi cabaar markuu yara yaalaan saarayaa dabka insha Allah hadii la yiraahdo. baradhadii iyo maxaa la yiraahdaa hilibkii waxaan soo marmariyay alaabtaan isku soo dardarsanay. dabkan inta saaraya insha Allah. marka hadda dabkan saaray marka insha Allah sidoo noqdaa hadba eegi doonaa hadii la yiraahdo. marka waxaad sameynaysaa marba walaaqaysaa wax kale kuma darayo. aakhirka hadii markuu dhex galo oo dhanaankaasi uu lafta ka galo ayaa hadda biyaha isaga dhalay. wax biyaan kuma darin laakiin waan ku dari doonaa biyo kale insha Allah si uu jilco hilibku aad ugu jilco. dadku waxay jecel yihiin hilibku aad u jilco. iminka dabalka waan ka qaaday, adigu muddo saaran yahay dabka. hadba waan yara walaaqayaa, waan yara imanaa waan yara walaaqayaa. halkan waxaan ku soo diyaarsaday waa toon iyo kamsaro. hilibku soo dhow yahay hadda wax yar ayaa ka dhiman. waxaan ku daray waa toontii kamsaradii. waan isku walaaqayaa si fiican ayaan isu dhex gelinayaa. kabacdi daboolkan saaraya haddana.
halkan waxaan ku qasanayaa waa xamar ama raqay iyadana waan ku darayaa hilibka insha Allah hilibkii si fiican buu u shiilmay iminka maxaa la yiraahdaa aad ayuu bislaaday uu kala yaacaya lafiiba gooni u yaacaya aad ayuu u shiilmay wad aragtaan maxaa la yiraahdaa I don't know biyihii meel ay mareen biyo ayaan ku daray saliidii maxaa la yiraahdaa saas hilibku kala daadanaya aan idinku tusayo saliidiisi intii yareedii saliid ahayd aan ku daray wax kale aan ku darayna ma jirin saliid ah wataas gooni way soo baxday marka waan ka guray hilibkii maxaa la yiraahdaa gooni ayaan ka dhigayaa hilibka insha Allah suugada yar ee soo hadhay inta yar suugada soo hadhay iyo wax yar oo kale aan ku darana baradhadina way bislaatay wad u jeedaan waxaan sameynayaa bariiska ayaan ku karinayaa halka waxa ku jirta waa filfil waa hayl qorfe maxaa la yiraahdaa kamsar qalalan waxa halka aan imka gacanta ku soo qabanayana waxa way baxr saaf marka intaas ayaan ku darayaa insha Allah hadii la yiraahdo bariiska aan ku sameynayaa iyo suugada yaradii digsiga ku jirtay intaas si fiican ugu sameynayaa baxr saafkaas sababta aan si fiican idinku tusayaa waxay tahay wadankeena qofkii jooga maxaa la yiraahdaa isagoo fresh ayuu soo guran karaa ka bacdina kaasaba ka macaan oo caraf leh laakiin kan meel fog baa laga keenay kolay maxaa la yiraahdaa caraftii malaha bariiska waan soo meeray mar horaan meeray cabar ayuu ii radsanaa bariisku waana miiray marka bariiskii baan ku daray iminka bariiskani si fiican ayaan isu soo dhexgeliyey maxaa la yiraahdaa aad iyo aad ayaan isu soo dhexgeliyey waana shiilay waxaan ku darayaa butter markii hore wax saliid kuma aan darin saliid yareeyay digsiga ku jirtay mooyaan wax kale saliid aan ku daray ma jirto haddana butter ayaan ku darayaa waxaan ku daray waa sonkor sonkorta buniga weeyaan bariiskii waxaan ku daray biyo kulul oo karkaraya ayaan ku soo daray si fiican baan isu walaaqayaa marka hore intaanan maxaa la yiraahdaa aanu karkarin markaan si fiican walaaqo oo meel walba aan si fiican gees walba ka soo walaaqo ka bacdi waxaan sameynayaa daboolkiisa saarayaa bariiska haddaad rabtid inaad ogaatid oo hadhito milix dambe ku darin wax dambe ku darin marka aad biyeysid ayaa la dhadhamiyaa biyaha inay yani wax walba u dhameystiran yahay kabacdi markaasaad ku dari kartaa wixii aad u baahantay laakiin bariiska ku soo bislaaday haddaad dhadhamisid oo bilaa milix uu ka noqdo ama uu si kale ka noqdo waa dhibteeda leedahay halkan waxaan ku sameysanayaa waa basbaaska cas iyo liin dhanaan la isku walaaqay ayaan ku sameysanayaa insha Allah ma aha shigni ma aha basbaasan shiidayo basbaaska cas iyo liin dhanaan ayaan isku walaaqayaa saan bariiska ugu cuno marka aanad ka gaarin inaad shigni samaysatid sidan oo kale oo basbaasna aad jeceshahay sidan oo kale waad sameysan kartaa wuuna macaan wallahi bariiska isku dhex kariska marka lagu cuno aad ayuu kugu soconayaa saxanka waxaan kusoo diyaariyay waa saladkii ayaan soo jarjartay maxaa la yiraahdaa soo diyaariyay maasha Allah bariiskii saladkii basbaaskii muuskii meesha muuskii kama maqna Soomaaliya muus baa la yiri raisan banana kama maqna meesha hilibkani maasha Allah waa ka halkaasaan kusoo diyaariyay la socdo wanaagsan oo wacan waan dhameeyay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Thank you for watching Mogadishu Cooking. Please don't forget to subscribe, like, share and comment.